بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبدي حسين علي عرفته أما عرفات ستة بدن يقانن ودقان مقالة جارسة وأنا كم إذا هاقويان كبيشة أجوران ودقان كاونتي وجير هل كان وحان كأرتكا عبارين غيري كتمت أما اللي يقول لي ما مسجال بلاد أورا oo leh caruur ka tagtay iyo nin dhalinyaro ah oo dadka reer guuraaga ah oo lagu dilay deegaanka kala qaybiya deegaan baarlamaanka kala qaybiya waqooyiga Wajeer iyo Eldaas taas oo ah aadan u cambaaraynayno oo fal lagu farxaanayn oo fal faashnimo oo fulinimo oo argagaxnimo leh oo hooyo iyo nin dhalinyaro ah wali hooyo uur leh lagu dilo aad baan ugu xunahay waana ka tacsiinayna arinta tan labaad arintan waxay ku xisaabsan tahay ama ay ku biyashobanaysa sidaan ognahay waa arin siyaasad ku leh oo niman baarlamaaniga ama siyaasad ku jira oo deegaanka dirsla ah waqooyiga Wajeer ay ka dambeeyaan sababtoo ah deegaankaasi lagu soo galay iyo mar hore si ku asaasmay waa la garanayaa mar horena xalaal kuma asaasmin ومن قل من إنتاج برلمانات مرة ولا جديجو واحد هذا أرنتها سيكون سلسلة تنا وحدود يدل بالارسي لجوضه ما دام دولة كينيا أما جودجا مذهب بنانه حدودها ودلك كينيا IBC أردوان شاعن دونه أنت يجست اللغة السمية دستور كينيا كل حساب سن حدودها مركز كهرتج جذا أيا ومدى الله بركعنا يا أنا ما تدا يوم ماركتي هوين كلور لاينا يا waxaan ognahay 3 bilood ka hor ama bil ka hor in 13 qof oo deegaanka lagu dhibaatay lagu dilay oo intaas oo qofna lagu barakaciyay oo dhibaatada ay ka dhacday oo wadada isku xirta galbeedka Wajeer iyo county-ga Wajeer oo xeeldaas xuduud u tahay oo la xiray oo dadkii aanan la soo mari karin ardayda shaqaalaha dadka dhibaataysan hooyo uur leh qof xanuunsan dadka kala duwan oo maaragtay oo danaha gaar leh ay marayaan mooyaale Marsabit Nairobi gaar asaas loo wareeganaya marka waxaan codsiga ah horta waxaan codkayga ku beerayay inta siyaasiyiinta iyo shacabka arintan ka dhidhisay oo ka hadashay oo maaragtay oo deegaanka Wajeer ka soo jeeto qaasatan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta meesha inta laga reebo governorka Wajeer laga soo doortay iyo xildhibaanka laga soo doortay Eldaas marka arintaas aan codkayga ku beerinaya waxaana aan maaragtay cambaarayna mar labaad iyo mar saddexaad bayna arinta arin laga fadhiisanay ahayn oo dawladii ay arintan oo ku xil saarto ilqaamiso oo la soo qabto ku arintan ka dambeey oo maaragtay sharciga la hor keeno 13 qof dhintay marna qof baa dhintay wax la soo qabtana ma arag oo maaragtay wax inta maxkamadda la keen leeyahay waa ragana ka dambeeyna marka dawladda waxaan ku boorinay inay arintan oo maaragtay ay isku hilqaamiyaan oo sharci laga qaado oo dadka arinta geystaan oo maxkamadda la keeno oo cadaaladda lagu keeno tan kalena waxaan maaragtay aan dawladana aan ugu baaqayaa in arinta si degdeg ah oo farageliso dhiigga muslimka oo meesha ka socda la joojiyo oo ummadana la barakacnin oo nabadda iyo maaragtay sinaankii cadaaladda laga shaqeeyo intaas aan ugu baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arinta shalay daraad ay ka dhacday galabtii malka gufu ayaa maaragtay aan u cambaaraynayna arintaas aad u foolxun dilmadaas dilma xun way runtii anaga horta Eldaas aad bay dib nagu haysaa anaga juurana daanahay hadalka waxa way Soomaali waxay tii runta daaliso sheegin been ba u qarsoon runta inaan ka hadalno waa in wax la soo qarimaha anaga Eldaas dib bay nagu haysaa dibka inagu hayso waxa weeyaan nimankan horta waxay wadaan dhulbilaaris ay wadaan sida maartay ninkan walaalkeen uu sheegayo meeshan horta meel la yiraahdo constitution ma noqonayso meel u qalmeys maaha ninkan wuu soo gatay ninka mar hore Wajeer maartay Wajeer West ayaa dib nagu dhibi jiray waa Keenan nin la yiraahdo Keenan asalkiisana wuxuu ka imaaday Ethiopia iyo bana yuusu mutiya Kenya ninkan waxa way Ethiopian way nimuta metoka Ethiopia mar عدين وحاء ارتدك مش جوجان عد وحابل مرتي ودد لو مر لا ماليشيان إثيوبيا لقى كينا مرتي دقن علاس يا ودد لو مر لا marka anigu arintaas waxaan leeyahay
dawladda Kenya waxaan way ogtahay mar walba loo sheega dad baa la laaynaaya dadkii wax maartay oo maartay laga qaada ma laho oo hatuu laga qaadana ma arkaysid waxaad arkaysaa hadda sida ninka walaalkaan uu sheegay 13 bisha kutoka January up to now waxa arkayna 13 ruux dhimata la sheegay wax oo idaacada laga sheega ma laho wax maartay oo maartay hatuu laga qaata ma laho anaga hadda meesha waan ku rafaasanahay aniga waxaan leeyahay dawladda Kenya waayo maan dad markii la soo dagaalayo maxaan ku yiraahdaa la koolay iyo baasir markii la soo dagaalayo dagaalka laba dhinac uu ka socda laakiin ciidanka hal dhinac la geeyaa aniga waxaan leenahay aniga horta caad ahaan waxaan u cambaarayna dawladda Kenya u cambaaraynaayba ina maartay si xaq darro ay maartay dad ku kala maamulayso waayo dagaal markuu dhaco hal raba ciidanka in meel kasta la geeyo oo dad la kala maamulo maartay la kala maslaxay la raba laakiin haddii ciidan meel la geeyo oo meelna la geynaynin hiyo sasa unaonyesha ni kama serikali unakuwa upande moja marka dawladda Kenya waxaan ka codsanayaa mtu ametoka Ethiopia na anakuja kucheza hapo game na anakuja dadku barakacinayo ani waxaan ka codsanayaa in maartay dawladda ilgoona ay ku eegto dadkii shalay ay ka hadleen oo maartay arrimahaas ka hadleen oo maartay mas'uuliyiintana maartay gacan baan ku siinayna ani waxaan leeyahay u dambeeskii arintaas dawladdan u caawinayna dawlad in wax noo qabato waayo dadku waa barakacin dadka lama joogo baasir lama joogo la koole lama joogo marka gufaada la barakacinaya ani waxaan leeyahay dawlad inay waliba county maxaa la yiraahdaa county commissioner maaha county maxaa la yiraahdaa security serikali huyu mtu anaitwa Hambaarsade huyu mtu ameleta shida sana huyu mtu paka ndolewa hapo kwanza Hambaarsade waa nin qabiil u salaysan oo maartay dhinac u jiifo huyu mtu hafai hapo atolewa hapo mara moja sisi tunasema huyu mtu ndolewa hapo afadhali leta mtu mwingine afadhali ana waxaan antab in nin cabid meesha nolo keeno dooni maayo inaan Hambaarsade meesha u joogo ana waxa la dhahaa Cabdiraxmaan nin reer marka Gufo baan ah marka runtii arintii ka socota arintii ka dhacday marka Gufo daraad oo maamo 9 bilood ah oo ilmo wadato wiil yar dhalinyaro oo ma aragtay oo xolo la jiro oo meesha lagu laayay runtii aad baan ka xanuunsanay ma ahayn inay arintaas ay dhacdo marka dhibkana wuxuu ka socdaa marka runtii marka la sheego dhanka Celaas waxaan dhahnaa in English expansion program territory expansion program la dhahaa politically instigated marka waxaan codsanaynaa dawlad in full force with all the apparatus available ina arintan ay daba galaan Calbritska dhibkaan geystay ina la keeno maxkamad la soo istaajiyo dadka politician ku arintan ka dambeeyna ina maxkamad la soo istaajiyo oo sharci la mariyo maxaan dhahaa de waa is always repeating issue wax dhamaana ma aha waa la xalinayaa odayaal baa meesha aadayin sabeen baa la qaadayaa next day next week wixii waa continuous so in fact I'm requesting the government the police force the security agents arintan inay soo galaan oo solution oo long term solution laga keeno lastly dadkii oo muslimka meesha degan Wajir North or the whole of Wajir in fact waxaan ka codsanayaa inaan si ammaan ah wada joogaan oo la wada noolaado la wada shaqeysto. Assalaamu calaykum.